waxgaradka aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay shirkan maanta halkaan ku qabannay waa salaamaya waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi beryahanba waxaa jiray warar ku saabsan xagga gobolka oo odayaal badani ay ka hadleen hadday salaadiin tahay hadday cuqaal tahay hadday waxgarad tahay hadday siyaasiyiin tahay dhammaan bulshada oo dhan gobolku ay aad uga hadleen oo ku noqnoqdeen oo ka soo jeediyeen mabda'ooda iyo taladooda iyo waxa ay ka qabaan arrimaha ka socda gobollada sool marka arrintaas si layfa oo isu imaatina oo dhammaystira oo odayaasha iyo cuqaasha iyo isimadu ay isugu yimaadeen may jirin xaalad degdega bay iska ahayd nin kasta meeshuu joogay unbuu ka jawaab celinayey ama ka fal celinayey aad baan ugu mahadnaqayaa intii ka hadashay oo soo jeedisay talada isimada hadday yihiin hadday cuqaasha yihiin hadday waxgaradka iyo siyaasiyiinta yihiin ka falcelinta ay muujinayeen mabda'ooda iyo taladooda iyo mowqifkooda ay kaga jawaabayeen waxa ay yihiin iyo waxa ay taladoodu tahay iyo waxa ay ka qabaanba aragtidooda ay kaga jawaabayeen baan uga mahadnaqayaa maantana iyadoo layfa oo ay wada joogaan oo aanay kala maqnayn oo meel isugu yimaadeen baan maantana waxaan caddaynaynaa in mowqifkayaga uu sidii hore aanu u caddaynay iyo sidii hore oo aanu uga jawaabnay arrimaha ka socda dhulkaa ay maanta aanu caddaynayno annagoo wada joogno dhammaantayo inaannu sidii hore taageerayno oo hadalka iyagu ahaa inaananu qayb ka ahayn meelaha laga qayb galay oo sool hawsha ka socota dadkuna ay hore u tashadeen taladooduna midaysnayeen ninkii isagu tala gaara u guuraya oo meel isagu wax ka xaadxaadhanaya isagu jirtaa laakiin taladeeda annagu meella uma guurin halkayagii baanu joognaa ku neegnahay ilaahay kaga sugaynaa khayr iyo barwaaqo iyo horumar dhib iyo colaad iyo tafaraaruqna ma rabno waxaananu adkaynaynaa cid kasta oo hawsha iyada ah danaynaysa oo u heelan oo wax ka qabadkeeda iyo wax ka horashadeedaba u diyaara waa u mahadnaqayaa raggu waa badan yahay oo ismo badan baa iga dambayn doonaa inaannu caddayno mowqifka iyagii aanu ka hadalnay annagoo goobjoogooda ah inaannu wada caddayno annagoo wada goobjooga oo wada joognaa bay maanta arrintayadu ahayd hore aanana u caddaynay maantana waa sii taakiidinaynaa inaananu howlaha qayb ka ahayn annaguna hore wixii la isugu yimi oo taladayadu ahayd ee halkayagii noo taallo wakhti kalena aananu meel kale ilaa hadda aanan uga guurguurayn marka cuqaasha iyo isimada iyo waxgaradka dhammaantooda waan salaamayaa intaasaan ku soo koobaya hadalkaygii ilma adeerayaalow arrimihiinna ku koobnaada oo iyaga hagaajista oo in waxay idiin hagaagaan baanu jecellahay oo iska daaya dhalanteedka waxaasoo dhan intaa iska daysaan maslaxadda iyo danta xaqiiqda ah ku soo dhowaada oo ka taliya waa idinku taageeraynaa maanta halkan waxaan ka sheegaynaa wax cusub maaha arrintaa gobolka sool ka soo cusboonaatay oo maalmahanba socotay aragtideeda iyo haddii ilaahay kuu roon yahay falcelinteeduna ay socotay annaguna wax badan aanu ka hadallay si gooni goonni ah muhiimadda shirkan maanta halkan ay isumadu isugu yimaadeen cuqaasha iyo guurtida iyo aqoon-yahankuna ku weheliyaan micnihiisu waa inta suldaanku sheegay oo waxa weeye inaannu jamcinno oo isu keenno oo hadalkii aannu meelaha kala duwan markaannu joognay aannu aragtidayada ka dhiibannay iyo taladayada in aannu ummaddana makhraanti uga dhigno annaguna aannu isula nimaadno taladeeda iyo aragtideeda aannu sidaana ku jamcinno muhiimaddu guud waa intaa ummaddana indhaheeda ayaa u macallina deegaana kan iyo dada kan dadkii mas-uuliyiinta dhaqanka u ahaa waa kuwa halkaa fadhiya inta ka maqanina waxa weeye halkaasay talada kala wadaa cid maanta justification ka keeni karta oo odhan karta ama waa lagu qaybsan yahay ama maaha ama caynkaa maaha sida odayaasha qaarkood hadalladooda ee ka soo yeeryeeraysay shirkii lascaanood justification ay noqonaysaa
ma jirto deegaanka maxamuud harti iyo inta la halmaala mowqifkoodii iyo taladoodii hore baan u soo jeedinay haddana muhiimaddu waa jamcintaa dadka aad arkaysaan oo sidaa u midaysanna aflagaada xaq uma leh tafaasiil kale xaq uma leh faallo laga bixiyo oo lagu farafareeyo xaq uma leh xaashaa kullillaah annagu dadka ehelkaya ah in hadal qalloocan uu nagaga tago aad iyo aad baannu u diidannahay mana rabno odhanna mayno ismada dhaqanka oo siciid harti baanaan hadal qadafa odhanayn shirkooda ay haystaan baanaan hadal qadafa odhanayn deegaankooda iyo dadkoodaanaan odhanayn waa ehel waa tol waa xigto waa qaraabo waa deris waa wax walba hore baannu uga wada hadallay kulligayo laakiin waxaannu leennahay war tolow arrintiinna waa jecel lahay inay idiin hagaagsan tahaye arrimihiinna ku koobnaada intaasi miyay hadal xun tahay miyay cambaarayn tahay miyay turxaan leedahay war tolow arrimihiinna sidaa haddeer suldaan siciid suldaan cabdisalaan iyo ismada iga dambayn doona ay ka hadli doonaan ilma adeerayaalow arrimihiinna ku koobnaada oo iyaga hagaajista oo in waxay idiin hagaagaan baannu jecellahay oo iska daaya dhalanteedka waxaasoo dhan intaa iska daysaan maslaxadda iyo danta xaqiiqda ah ku soo dhowaada oo ka taliya waa idinku taageeraynaa garaadka guud oo garaad jaamac garaad calina wuu ka dhiibtay fikirkiisa taleed aad baan ugu hambalyeenaynaa ninkaasi wuxuu ka shaqeeyey oo ka hadlay waa maslaxadda kulligeen iyo siday ku wanaagsan tahay isma dafiri karo annagu ma dafiri karo siciid harti miyaanu dafiri karraa ma dafiri karo waa idin kala naqaan waa idin naqaan deegaankiin dad walaalaaba hele baynu nahay yeenaas dafirin tolow xashaalula inama kala qabatee guud ahaan muhiimaddu intaasay ahayd shirkuna waa salaaman yahay akademiyadda oo loogu bartay sida magaceeda ka dareemaysaan akademiyadda cilmiga dhaqanka iyo suugaanta waxaan ku dadaalnaa inaan dib u xasuusino dadka dhaqamada soomaalidu leedahay waana xusnaa barnaamijyo badanaa qabanaa barnaamijkan dabshidka oo soomaali dhaqan u leedahay oo weliba beejkeena saan kusoo qorna dadka soo abalaagiri arkeen abwaan hore u tiriyey uu yidhi maaragtay dabshidkii hadduu galo ayaa dhuxulihii daadin waa maraa laga hadlayay masalan waa tili yidhi maaragtay duqaydii dhammaataye talow dirirkayaa eegi dabshidkii hadduu galo ayaa dhuxulihii daadin marka dadka dirirka waxay fiirin jireen xidigaha meesha loo socdo roobku meeshuu ka imaan la fiirin jiray dabshidkana kaltirsi taariikhda maaragtay lagu sheegi jiray xataa marqaarkiisa nayruuska lagu tilmaamaa oo lagu heesay layidhi nayruusku waa ciid marka taariikhaha soomaalidu leedahay ina dib u soo dadka la xasuusiyo dhalinyarada la xasuusiyo iyo dadka waaweyn ay dhexal ugu tagaan si ogtihiin maalmahan gaar ahaan gobolada koonfureed waxa aad loogu maaragtay loogu dabaaldegaa maalmahan oo dabshidka banaadir gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka xamarweyne shangaani xamar jajab waa beri ilaa iyo marka iyo waxaa loogu dabaaldegaa badgalka ama shir ayaa la sameeyaa afgooye istuna laga ciyaaraa gobolada maaragtay shabeelaha dhexe shabeelaha hoose barnaamijyo gaara laga sameeyaa marka galabtiina dabkaa la shidaa dabka marka la shidaayo sanadkii dhammaaday dabka waa lagu boodaya marka xamarweyney markaad tagtaan waa aragteen galabtoo kale waxaa jirta ulaha la isku garaacaa laakiin reefgooy ulaha isku tumaayaan ulaha markaa reefgooy markaa aragtaan ushaa la isku tumaaya istunkaa la ciyaaraya waa sanad baa la yidhaahdaa marka farxaddaas oo sanadka dhammaaday gaalada waxay sameeyeen waa aragteen waxaa la yidhi nataalaha muusig wax bay tuntaan ku ciyaaraan annaga laakiin dhaqankeenna soomaalida waxyaabo lagu ciido ama loogu dabaaldego sanadkaas cusub ayaa la sameeyaa inkastoo dadka qaarkiis ay duraan laakiin ay sax ahayn diin ahaan dadkaas uma ictiqaadsana in la yidhaahdo dadka hadday sanadkan la istumi waayo beer ma bixayso dadka ma waxaas wax jira ma ahan waa iska dadka iska qaatay laakiin waa iska farxad iska caada ah marka
maanta waxaan ugu talagalnay dhalinyarada iyo dadka soo koraya in khubarada halkan fadhis in soo xasuusiyaan taariikhaha dalka qof taariikh u leeyahay caalamka markaad tagto waa la isweydiiyaa maxaa taariikha leedihiin maxaa maaragtay soo barateen laakiin jaamacadeen annaga waa dadaaleen aqoontii kordhinayeen laakiin in dadka dhaqankooda la baro waa wax weyn annagana aan ku dadaalin dadka dhaqankoodii iyo waxay taariikh leeyihiin qof aan taariikh lahayn Soomaali taariikh leeyihiin taariikhdaada inaad barato dhaqankaada inaad barato waa muhiim marka saa darteeda akademiyada maanta waxay ku talagashay in barnaamijka ay qabato laba qayb oo ah in hadal jeed dadka wax la xasuusiyo qaybta labaad waa panel odayaalkan soo fariisan doonaan ay ka hadli doonaan su'aal laga weydiin doono caadooyinkaas waxaa kaloo maartay meeshan aad ka dhihan doontaan hadhow barnaamijka markii panelku dhammaan su'aalo ay jiri doonaan waa waqtiga oo nakulaala awgiis aan daahnay waa iska ogtihiin duruufaha jira waxaan ugu talagalnay maanta barnaamijkeen inuu 3 saac bilowdo laakiin hadda 4 saac la joogaa qof kasta oo ka soo qayb galay akademiyada waa soo dhaweynaynaa dad badan aan maartay rifilayn inay ka soo qayb galaan duruufahooda ayaa khasban u malaynay ka soo daahan laakiin akademiyada cid walba oo wax soo bandhigaysa cilmi baaris sameynaysa dhaqankooda soo bandhigaysa diyaaray u tahay maanta rug cadayaasha aan idin keenayna ka faa'iideysta aan si fiican loo dhageysto waxaa kaliya aan u istaagay inaan wax kasta oo gaabis ku yimid soo dhaweyntiina ama culeysyada jira xagga amniga ha laga raali ahaado waa in aan ciidamada amniga la shaqeeyo iyo duruufaha dalka jira ogtihiin ayaa keenaysa marka qaarkiis la isku adkeeyo taasna in loo sabraa la rabaa ciidamada waa waajib baa saaran anaga dhammaanteena muhiimad ay nolol amnigeena ilaashano waxaan rajeynayaa waqti fiican aan qaadano akademiyada kusoo dhawaada waa idin furinta xafladeena insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu